wiilkan oo lagu magacaabo ayaa waxa uu barta Facebook ka bartay gabar lagu magacaabo Fahiima oo ay ku wada noolaayeen magaalada Hargeysa ee deegaanada Somaliland waxaana muddo markii ay wada socdeen uu Ayaale jacayl xad dhaaf ah u qaaday Fahiima balse Fahiima oo aad looga yaqaanay magaalada Hargeysa ayaa waxay caan ku ahayd in xiriir jacayl rasmi ah aysan la sameynin wiilasha ku nool magaalada Hargeysa balse ay taasi beddelkeeda ay ka jeceshahay kuwa qurbo joogta ah muddo kadib dadaal dheer uu sameeyay Ayaale ayaa u suura gashay in uu Fahiima soo jiito ayadana ay si dhab ah u jeclaato Ayaale oo ah wiil kaarta badan balse aan shaqeynin oo ka dhashay haddana qoys faqiir ah oo aan waxba haysanin sidoo kalena uu yahay arday waxbarta Fahiima iyo Ayaale ayaa ku heshiiyay inay isguursadaan balse wax walba waxay isbedeleen markii ay Fahiima ay ku qanci weysay nolosha Ayaale maadaama uu yahay qof aan waxba haysanin dhanka nolosha Ayaale ayaa u tagay aabihiis isagoo u sheegay in uu jecel yahay gabar ku nool magaalada Hargeysa uuna jecel yahay in uu guursado balse aabihiisa ayaa arintaasi ka soo horjeestay kadibna caay iyo habaar isugu daray 2 toddobaad kadib Ayaale ayaa ku laabtay aabihiisa waxa uuna u sheegay in uu u fududeeyo guurka Fahiima balse aabihiisa uu mar kale habaar iyo calo kala duldhacay waxaana ugu dambeyn Ayaale u soo diray Fahiima muuqaal fiidiyoo ah isagoo isdilaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun